carruurta iyo akhriska. ubadku waa ubaxa guriga, wixii lagu barbaariyo ayay ku koraan kuna weynaadaan. maadaama aan isla garanay ahmiyadda akhriska, waxaa habboon in ubadkeenna aan ku tarbiyeyno akhriska. ilmaha marka ay soo gaadhaan 6 sano waa marka uu yeelanayo wax uu jecel yahay iyo wax uu neceb yahay. sidaas darteed waa in wakhtigaasi la jeclaysiiyaa akhriska si ay caado uga dhigtaan. carruurta akhriska badan waa kuwa waxbarashada ku wanaagsan, waa kuwa ugu dadaalka badan uguna firfircoon dugsiga. ilmaha inuu akhriska jeclaado waxay u furaysaa irdo badan, sida in ay korto maskaxdiisa. waalidiinta waa in ay dareemaan in ubadkooda ay leeyihiin awood ay wax badan ku bartaan. carruurta dadoodu inta aysan gaadhin 6 sano waxaa qurux badan in sheekooyin badan looga sheekeeyo, gaar ahaan sheeko xariirta khiyaaliga ah oo maskaxdiisa korinaysa, xikmado badanna wuu ka faa'idi. sidoo kale sheekooyinka qosolka leh waxay carruurta ka ilaaliyaan cabsida iyo welwelka faraha badan. deegaan wax akhris waa in la helaa. guriga waxaa fiican in laga helo maktabad ama xitaa buugaag carruurta hortoodana wax lagu akhriyo, sidoo kale looga sheekeeyo dadkii wax akhrin jiray guulihii ay gaadheen si ay dhiirigelin ugu noqoto. hooyadu waa barbaariyaha carruurta. ilmaha inta badan wuxuu ku daydaa dhaqan ahaan hooyadiisa, hadalka, ficilka, dabeecadda. ka waran haddii ay hooyadu mashquul ku tahay TV-ga ama hadal wanaagsanba aysan ku hadal, iska daaya qoraal yar xitaa dulqaaday ku akhrido aysan lahayn. dabcan waxaad sugaysaa ubad dhaqankeeda, dabeecaddeeda leh iyo inuu TV-ga hor fadhiyo 10 saacadood. dugsiga wuxuu saamayn ballaadhan ku leeyahay carruurta yaryar, hab fikirkooda, dhaqankooda iyo xitaa wax akhriskooda. waxyaabaha akhriska ku dhiirigeliya carruurta waxaa ka mid ah daryeel iyo ka warqab joogto ah. in carruurta iyo waalidka si wada jir ah wax u akhriyaan. abaalmarin dhiirigelineed, in carruurta qofkii hal buug dhammeeya la siiyo abaalmarin. in hadiyad ahaan loogu keeno buugaag, sheekooyin. hooyadu waa inaysan ka fogaan buugaagta si ilmaha yar u dareemo qiimaha buugga. ugu dambayn, haddii la helo jiil wax akhrisku caado u yahay, waxaan shaki ku jirin in dad badan oo fikira ay soo bixi doonaan. balse haddii weli lagu mashquulsan yahay YouTube iyo barank, waxaa soo bixi kara jiil aan mas'uuliyad iska saarin dalka. akhriska nolol maalmeed ka dhigo. aroor kasta waad soo kacdaa, waxaad cuntaa cunno kala duwan, waxaad cabtaa biyo, waad socotaa, waad neefsataa, waad hadashaa oo waad nooshahay. ka waran haddii dhowr maalmood oo xiriir ah aadan wax cunin waxna cabin, dabcan waad tabardarsanaysaa oo xaalad adag baad galaysaa. haddii aad leedahay aqoon, waxaad u baahan tahay inaad maalin kasta cusboonaysiin ku samayso. inaad maalin kasta wax akhrido waxay ka dhigan tahay inaad maalin kasta wax cusub baranayso. samayso jadwal bileed aad ku akhrinayso buugaag. tusaale, bishii waxaad akhrin kartaa haddii aad bilow tahay ugu yaraan 3 buug oo yaryar. bishii waa 30 maalmood. buugga aad akhrinayso waa 152 boqol oo buug. maalin kasta waxaad akhrin kartaa 10 buug. waxaa jirta 2 qaab oo loo adeegsado akhrinta nidaamsan, waxayna kala yihiin in bishii la qorshaysto 3 buug, isbuuc kasta hal buug la dhammeeyo waa 3 isbuuc, halka isbuuca 4aad ee soo hadhay falanqayn iyo soo koobid lagu sameeyo buugaagtii la akhriyey. in bishii la qorshaysto 3 buug, maalin kastana si wada jir ah loo akhriyo 3 buug, buug kastana laga akhriyo 10 buug. nidaamkan dambe dadka akhriska ku cusub kuma fiicna, sababtoo ah way adag tahay in si joogto ah loogu dhaqmo. go'aanada ugu badan iyo qorshooyinka aad dejisay waa inaad ka miro dhalisaa. akhriska noloshayda muxuu ka bedelay? qoraa carbeed oo lagu magacaabo Axmed Shaqiri waxa uu qoray buug uu kaga warramayo hayaankiisa nololeed. waxa uu si faahfaahsan uga sheekaynayaa muddo safar uu ku tegay meel jasiirad ah oo aan cidna joogin. muddada uu halkaas ku sugnaa waxa uu ka soo tegay dhammaan wixii mashquul ku furi lahaa. wuxuu horay u sii qaatay kitaabka quraanka iyo dhowr buug oo kale. muddada uu jasiiradaasi ku sugnaa wuxuu isku dayay inuu wax ka bedelo noloshiisa, inuu isweydiiso nimcooyinka alle intay baan ka faa'iidaystay, iyo inuu naftiisa la hadlo. khudmadiisa wuxuu ku bilaabay, buugaagta waxay kaalin weyn ka qaateen in noloshayda ay hagaagto, mana qiyaasi karo aniga oo 42 jir ah haddii buugaagtan wax ka bedelay fikirkayga aysan ahaan lahayn sida xaalkaygu noqon karay. waxa uu qoraagu soo qaadanayaa 40 buug oo noloshiisa wax ka bedelay. waa buugaag gebi ahaanba bedelay geedi socodka noloshayda, ayuu yidhi. haddaba dhowr ayaan ku soo koobayaa waxyaabaha akhriska laga dhaxlo. cilmi waxtar leh. waxa ugu muhiimsan ee akhriska laga helo waa aqoon dheeri ah. go'aan qaadasho. aadanaha mar kasta wuxuu la kulmaa dhacdooyin badan, qaarkood fursado ah, qaarka kalena caqabado ah. haddaba qofka akhriya buugaagta marna kuma degdego go'aan qaadashada, balse waxa uu ka fekeraa go'aano badan, wuxuuna ka doortaa kan ugu macquulsan. waxa uu ka sii fekeraa waxa ka dhalan kara go'aanka. dhaqangelinta wixii aad baratay. waxaa jira fikrado badan oo kugu soo dhaca, balse dhaqangelinta fikradahaas way kugu adag tahay. buugaagtu waxay kaa saacidayaan inaad dhaqangeliso go'aanadii aad qaadatay. dabeecadda qofka ayaa wax badan iska bedelaya. inta badan dadka akhristayaasha ahi waa dad degan dabeecad ahaan, la dhaqanka dadka kalena way ku fiican yihiin. wixii ay barteen waxay sii gaarsiiyaan dadka kale. haddii aad ummadda wax ku dhaanto, fadlan la wadaag oo hala dhiman cilmiga iyo fikirka kugu jira. laga yaabee in tarantaada dambe ay ka faa'idaan. akhristayaasha wanaagsan waa hadal yaqaano. marka lagu casuumo xaflad ama goob kale, inta badan waxay ku hadlaan hadallo soo jiidasho leh oo asluubaysan. isduldhigid, tawaaduc. markaad wax badan barato kama dhigna inaad dadka kale ka sarayso. waxaa laga yaabaa in dadka kale meelaha qaar ay kaaga fiican yihiin. mar kasta ula dhaqan dadka si qadarin iyo ixtiraam leh. marna yaysan kaa dhaadhicin inaad dadka kale wax dheer tahay. marna kuma mashquulaan ammaanta ama cayda dadka kale uga imaanaysa. waxaa jirta xikmad carbeed oo leh, cidna ha ka sugin mahadcelin. waxaad qabanayso wanaag iyo samafal u qabo alle dartiis. sidoo kale in la iska indhatiro hadallada dadka qaar waa arrin meesha ku jirta. haddii aad la doodo doqon, dadku waxay ku wareeraan kiina doqonka ah. si aad ula socoto buugaagta dhegaysiga ah iyo muuqaalada aqoonta ah, fadlan nahu xidhnow oo barta guduudan guji.